ama wanaagsan daawadayaal waa barnaamijkeena astaan horumar aad uga barateen studioga Melbourne wadanka Australia. barnaamijkeena caawa waxaanu ku eegi doonaa sanad guuradii 17aad ee ka soo wareegtay asaaskii Puntland iyo dabaaldeg halka kan lagu sameeyo sanad walba. sanadka kan 2015 bisha August halkan waxaa lagu xusay asaaskii Puntland. sida dad badan ay wada ogsoon Puntland waxaa la aasaasay 1998 kadib markii ay dhuntay dawladda dhexe ee laga hagaysay Soomaaliya. waxaa eel dheer ku dhacay qarannimadii Soomaaliya waxaana halkaa ka bilowday dagaal la sokeeyay ee dhammaan ragaadiyay jiritaankii iyo qarannimadii Soomaaliya. markii ay ka baxday meesha dawladda dhexe ee hanaanka wadaninimo oo ay dhuntay wadaninimadiina si dhab ah ay u suushay astaamihii qarannimada la waayay Soomaaliya markaa waxaa ka bilowday in ay dib isu abaabusho dawlad goboleedyadaas waxaa ugu facweyn oo ugu horeeya Puntland. kadib markii dadkii halkaa ku noolaa Puntland odayaal cuqayl iyo aqoon-yahan ay isu tageen waxa ay lagama maarmaan u arkeen in la helo nidaam hagaa Puntland inta laga gaarayo Soomaali isu soo noqota oo markaa soo ceshata sharafteedii. dadka reer Puntland waxay ku tashadeen inay sameystaan nidaam kala haga ilaaliya maxaa la yiraahdaa amnigooda iyo nidaamkooda dawladnimo waxaana la aasaasay dawlad sanadkii 1998 bishii August oo sanadkaas. iyadoo halka ay ka duulayso ayaa himilooyinkaas leegsanayo waxa ay Puntland ka tahay hormuudka ugu horeeya mararka qaarna waxa la yiraahdaa Puntland waa hooyada Soomaaliya iyo aabaha. marka Puntland guusheeda laga hadlaayo waa Soomaali weyn guusheedii. Puntland waxa weeye hooyada Soomaaliya waa dad aad ugu dhuundaloola inay wadankooda wax weyn ka qabtaan ama ra'yi wanaagsan ku biiriyaan qarannimada ummadda Soomaaliyeed. Australia waxay ka mid tahay meelaha sida aadka looga xuso sanad walba xuska sanad guurada marka la gaaro bisha August kowdeeda. iyadoo taa laga duulayo ayaa waxa sanadka kan aad iyo aad looga xusay wadankan Australia gaar ahaan magaalada Melbourne xilligaas asaaska Puntland. iyagoo aad ugu kalsoon horumarka Puntland ay gaartay inuu yahay mid sii socon doona had iyo goorna waxa la yiraahdaa mar walba isbedelada ay soo martay Puntland wuxuu ahaa mid waliba markaa mid ku haboon waqtiga la joogay. saad la socotaan kadib dagaaladii sokeeyay oo dalka ka dhacay iyo dhibaato baahsan oo dalka ka dhacday oo keentay in la waayay maamul dhexe oo dalka isu keena oo matalaha dawladii ugu dhameysay oo dhacday 1991 dadka reer Puntland waxay ku tashadeen inay sameystaan nidaam kala haga ilaaliya maxaa la yiraahdaa amnigooda iyo nidaamkooda dawladnimo waxaana la aasaasay dawlad sanadkii 1998 bishii August oo sanadkaas. kadib markii ay aqoon-yahanada odayaasha dhalinyarada hooyooyinku ay isu yimaadeen ayna go'aansadeen inay laga maarmaan tahay in la dhiso dawlad lana bilaabo system Soomaaliya ay isugu imaan karto oo ah in la abuuro isteediyo gaar ah oo ummadda Soomaaliya ay isugu timaado sida kuwa ka jira Jarmalka, Mareykanka, Australia oo maanta ku noolnahay oo saad la socotaan wax weyn aad ka dareemi kartaan. haddaan in gadaal ugu noqdo Puntland waxay ahayd state-kii ugu horeeyay oo sameeyay state government oo hadda kuwan ka soo sheekay waxa weeye dawladda ugu horeysay oo samaysatay dastuur ama dawlad goboleedka ugu horeysay oo samaysatay dastuur waxa dawladda ugu horeysay oo samaysatay calan waxa dawladda ugu horeysay oo samaysatay member of parliament waxa dawladda ugu horeysay oo samaysatay system federaaliya oo shaqeynaya oo min tuulo ilaa caasimadda ka howlgalay kana shaqeynaya
puntland waxay leedahay khayraadka waxay leedahay ka sokow khayraadka dabiici ah waxay leedahay odayaal dhaqameedyo awood iyo karti u leh inay xanibaan inay dejiyaan inay kontroolaan inay meel mariyaan wada noolaanshaha ehelnimada nabadda amniga iyo horusocodka dowladda mandiqada puntland ay ku taalo Soomaaliya maanta xaaladda ay marayso waa la soconnaa 25 sano burbura baan la soconnay khasaaraha Soomaaliya soo gaaray ma dib u eegno xilligii kontomaadkii markii daaqilada la diyaarinayay Soomaaliya wadamadii gumaysiga waxay ku taliyeen Soomaaliya dawladnimo diyaar u ah 10 sano tababar ah la siiyo 10 sano tababar ah Soomaaliya la siiyo oo ah maamul dawladeed laakiin maamul dawladeedkaas uu ahaa mid central ah 10 sano la siiyay 60 waxa ku bilaabnay dad noo tababaran oo 10 sano la siiyay Soomaaliya inay go ahead ahaadeen wadaan maxaa ka dambeeyay 9 sano ka bacdi inqilaab baa dhacay maxaa ka dambeeyay 12 sano ka wadanku waa burburay maalintii wadanka burburay Soomaali ukunteeda hal dambiil bay ku jirtay xamar iyo agaarkeeda koonfur ma oran karo baydhabo wax yar u jirta baydhabo janay baa la oran jiray xorriyadda ka hor canab bay lahayd canabka beeraha horumarka lagama gaarin canabka waa la dhoofiyaa waa maaragtay fruitka ugu qiimo badan sababta ah horumarkii baan gaarin afgooye iyo agaarkeeda ma dhaafsanin marka ku noqon karnaa markii aan 25 sano aan dagaal ku jirnay burbur ku jirnay inaan 10 sano khasaarnay dawladda central ku noqono waa habeenka xaloo tagay The prosperity peace of Somalia is the prosperity peace of the region and the world, and you are the pillars of that peace and prosperity of the countries. Brothers, allow me, sisters, allow me to acknowledge first the current leaders, Professor Abdul Wali, who has taken his time and efforts from living in a luxury life in America to build his nation and to look after people in Somalia, and particularly in Puntland, is something that we need to see a role model that we all have to emulate. There is no free lunch, which means if anyone pays something, there is something behind it. So to own our ardayda dhulkan wax ku barata ama dadkan dhulkan wax ku bartaa inay tagaan dhulkii oo voluntary ay u tagaan jaamacadaha wax ka dhigaan institutionska dawladda ay wax ka caawiyaan oo maaragtay ay siiyaan time siiyaan 2 bilood 3 bilood innaguna aynu arrinta dhiiri gelino oo aynu maaragtay yaani ku dhiiri gelino ardada dhulkan wax ku barata iyo dhalinyarada dhulkan wax ku barata arrintaas oo arrin positive ah aniga ila tahay waxa ka jirta Soomaaliya dhibaato ma garanaysaa diaspora hadii aan nahay Soomaaliya qayb ka mid ah ka dhacda waxa weeye Soomaaliya waxa ka jira jaamacado waxa ka jira dad waalidkooda ay lacag geliyaan hanti geliyaan iskuulada dibadaha u diraan jaamacadii waddanka arday ka soo baxday baa jirta waxa dhacda Soomaaliya qayb ka mid ah in inta la tago dadka noocaas in shaqadii ay qaban lahaayeen dad diaspora oo dibadaha ka tagay shaqadii ka qaadaan shaqadii qaban kari lahaayeen ardaydaas arrintaas oo arrin fiican ma aha Puntlandna arrintaas uu uga digaynaa in maaragtay arrintaas ka dhacdo sababtoo ah waxa ka dhacday moral jab waxa ka dhacay in ciyaalkii wax ku bartay intaas soo tabcayay oo soo survive inay galaan maxaan ku iraadaa tahriib galaan marka arrintaas ma aha khasaare weey hadii arrintaas ay inaga xageena ka dhacdo marka Puntland guusheeda laga hadlaayo waa Soomaali weyn guusheedii Puntland waxa weeye hooyada Soomaaliya waa dad aad ugu dhuundaloola inay wadankooda
wax weyn ka qabtaan ama ra'yi wanaagsan ku biiriyaan qarannimada ummadda Soomaaliyeed waxay ku guuleysteen waxyaabo aad iyo aad u fara badan isuna soo dhaweynaya dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba waxaan kaleeto oo ugu hambalyeynaya Puntland inay tahay hoyga nabadda hoyga kalgacaltooyada hoyga isjacaylka taasoo muujinaysa maanta dhibkii yaraaye ku dhacay muxuu ahaa Yemen ee Soomaali ama dadkii meeshaas ku noolaa oo walaalaheena ahaa qabsaday markii ay yimaadeen wadankii hawsha ay ka qabteen haddaan dad isku xiran oo isku kalsooni ayaan ahayn ma ayan ku guuleysteen inay farxad dadkaasu maanta wadanka gudihiisa ugu noolaadaan ama meeshii ay rabeen wadanka ay rabeen ugaga sii gudbaan waxaan si gaar ah ugu hambalyeeynayaa aanan ugu soo jeedinayaa guul iyo farxad inay hawshooda ku wataan dawlad goboleedka Puntland oo hawl adag aad ugu mashquulsan iskuna dayaya inay homeworkoodii guriga ahaan hoose ay sameeyaan oo taasoo guul weyn u keeni karta midda kaleeto oo aan rabo inaan xuso waxa weeye maxaa looga baahan yahay halkan dhowr qof baa ka xustay diasporada adduunka kala joogta ee u dhalatay Puntland gaar ahaan guud ahaan Soomaalida u dhalatay maxaa looga baahan yahay waxa weeye walaalayaal sida aan ognahay ma ahan iga raali ahaada ma ahan in ay tahay homework aad qabanaysa ama gurigaagi si aad hawshiisa u qabato inay tahay inaad halkaan markaad joogto aadan waxba ka ahayn muhiimadda ugu weyn oo aas-aaska hawsha wadanka aad u qabanaysaa waxa weeye shakhsiyadaadu adigu wadanka aad joogtid maxaad ku tahay waxaan ognahay dadkeenu waxaan ku dheeraynaa aad iyo aad ugu dheeraynaa inaan hadalno maxaa ahaa oo oral people baan nahay oo dad afkaas wax ka sheega laakiin marka ay noqoto practical waxa fiican wadanka aad joogtid inaad wax ka tahay hadii kara Puntland 17 sano way ka weyn tahay Puntland magaca Puntland la dhaho markii la bixiyay dhowr boqol oo sano ka hor bay ahayd maamul hadii la dhigi karo oo la leeyahay maamulka dartiis baa loo sameeyay magacaasna 17 sano loogu cayimayna waxaan dhigi karaa maamul waa soo lahaan jirtay Puntland waxay ahayd meel xadaarad soo leh waxay ahayd meel adduunku ku xiran runtii oo adduunyada kale ku xiran oo trade la sameeyso oo business la sameeysa ayay ahayd magaca Puntland wuxuu ahaa magac ay u bixiyeen dad ajaanib ah oo inta yimaadeen u bixiyay dhulkii uduga u bixiyay bay ahayd marka reer Puntland waxay sameysteen oo ay rukumada u aaseen marka ugu horeysa waxa weeyaan waa nabadii marka ugu horeyso waxaan u mahad celinayaa dadkii ka soo shaqeeyay xafladan quruxda badan caawad iskugu yeeray ayaan u mahad celinayaa waxaan rabaa marka ugu horeyso wax aan laga soo shaqeyn ma fiicnaadaan meelna ma gaaraan Puntland marxalado badan bay soo martay odayaal baa ka soo shaqeeyay mar wadaadaan dhex galay waayo aragnimadii ay qaateen iyo waxay ka faa'iideysteen marxaladihii badnaa ay soo mareen waxay soo gaareen 17 sano maamul inay dhisteen ay meel ku gaaraan waxaan leenahay hambalyo shaqada badan oo la soo qabtay waxaan u hambalyeynayaa intii hore uga soo shaqeysay oo soo gaarsiisay inay 17 sano maanta ay soo gaaraan wixii dhintayna Allah u naxariisto inta noolna yani waxay soo qabteen maanta laga faa'iideystay wax kastoo yimaado waxa fiican in laga hadlo meesha ay ka yimaadeen ma aha kor kaliya in laga hadlo Puntland odayaal baa ka soo shaqeeyay hoos ka soo bilaaway oo soo gaarsiiyay waqtigan waana lala shaqeeyay si ay hore ugu marto shaqadana hore ugu socoto waxa loo baahan yahay kala dambeyn iyo in la wada shaqeeyo haddii la rabo inay hore u socoto dadka hadda maamulka hayo lala shaqeeyo
hala kala dambeeyo si oo meel ay u gaarto. waxaa loo baahan yahay marka iyadoo laga faa'iideysanayo waayo aragnimada Puntland, iyadoo laga faa'iideysanayo qaababka ay soo martay, iyadoo laga faa'iideysanayo heerka ay maanta marayso, in isku meel looga soo wada jeesto sidii Soomaali xora hal mid ah qaab federaalism dastuur loo wada dhan yahay leh sidii loo samayn lahaa. laakiin arrintu inay noqoto culaysku markasta Puntland saarnaado xoogaa waxaa moodaa maamulada kalena laftigoodu ilaa xad aysan inta Puntland ay taagan tahay ama culayska ilaa xad ay safka hore kaga jirto. waxaan qabaa haddii isku meel looga soo wada jeesto in Soomaali dhaban la heli karayo. waxaa ka soo qaybgalay xafladda Puntland jaaliyadaha halkan ku dhaqan ee iyagu kala matala dowlad goboleedyada kale ee Soomaaliya. waxaa ka hadlay gudoomiyaha Jubbaland halka kan wakiilka uga ah Dr. Marishibiya, wuxuuna hadalkiisa ku bilaabay sidan: dhammaan dadweynaha waa idin salaamayaa, waxaan idinku salaamayaa salaanta muslimka. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan kaloo u hambalaynayaa ama aan leenahay waa mahadsantahiin inta ka soo qayb qaadatay xafladdan aad iyo aadka u ballaaran oo ka qayb galay dhinac walbaba. waa ku mahadsantihiin soo dhoweyntiinni. waxaan kaloo u hambalyanayaa maanta dhammaan ummadda Puntland meel kasta ay joogto, madaxweynahooda, madaxweyne ku-xigeenkooda, gudoomiyada baarlamaanka, shacabka, odayaasha, xildhibaanada iyo dhammaan ummadda Puntland meel kasta ay joogto. hambalyo ayaan leeyahay. hambalyadaasoo ah 17 guurada loogu dabaaldegayo, maadaama ay horay gabadh u tiri koos waa meel ka weyn 17 sano ilaa 200 sano ilaa 300 sano. waa meel maamul lahayd ama boqortooyo ah ama saldanad ah oo intaa jirtay. gobolka Jarar, gobolka Liiba, aad ka soo dhaadhacdeen dhulka hooyaad dhulay ka soo dhaadhacdeen. halkii lagu dhalay ciid lagu habiya dhaxya dhugo dhulka hooyaad dhulay ka soo dhaadhacdeen.
soomaalinimadan jeclahay oo waxaan jeclahay maartay Soomaali wax wada noqoto wax wada qabsado maxaa la dhigay calanka waa calankii Jubbaland ee gabadheeda ay qabtaa aniga aan dhalay gabadheeda kalena waxay qabtaa Puntland anigana waxaan qabaa kilinka sanaad I love all of them Somalia all of them Somalia hanoorato hamidooda ha israacdo waxaan diyaar u nahay haddaan nahay dhalinyarada Puntland anoo ku hadlaya magacooda markaan dhalinyarada leeyahay waa gabdho iyo wiilal ma aha wiilasha kaliya inaan ku hadlayo meel kastoo aad joogtaan inaanu diyaar u nahay inaan caawino waad ogtihiin inaanu soo dhaweynay dhammaan qaxootiga Soomaaliyeed oo ka soo qaxay dalka Cadan ayadoo aanan wax dawlad ah oo aan la kaashanay iyo cid naga caawinaysa aysan jirin waxaa halkaa lagu soo bandhigay heeso aad u tiro badan iyo ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka Soomaalidu ay ku caanka tahay waxaana heesuhu u badnaayeen heeso loo tiriyay Puntland sida tan ayayna u dhacday markii la bilaabay Puntland la asaasayba taariikhda ku beeganto dhammaanteenu soo baxnay markii la bilaabay Puntland la asaasayba taariikhda ku beeganto dhammaanteenu soo baxnay arag gobolada Puntland bal arag barwaaqo siday ku tahay bal arag dadkuna u baraarayo balaya u nacabiin bal arag bal arag gobolada Puntland bal arag barwaaqo siday ku tahay bal arag dadkuna u baraarayo balaya u nacabiin bal arag bal arag bilicdiyo dhismaha intay baxadiisu tahay khayraadka ka buuxa iyo siday nabadu mileen bal arag bal arag bilicdiyo dhismaha intay baxadiisu tahay khayraadka ka buuxa iyo siday nabadu mileen bal arag bal arag bida iyo mudug bacaad weyn iyo goldogob beledka gaalkacaya iyo beriga xulaha ku nool bal arag bal arag bida iyo mudug bacaad weyn iyo goldogob beledka gaalkacaya iyo beriga xulaha ku nool munaasabada markii la soo gabagabeeyay ayaa mikrofoonka waxaa la dhex qaaday dadka halkaa ka soo qaybgalay xafladda Cabdisalaan Nuur Cirfo oo ah wariyaasha Puntland TV ee ka howlgala magaalada Melbourne waxaana uu ku bilaabay sida tan isagoo dadka weydiinayay dareenkooda caawa ku aadanaa xafladda waa tahay xafladda oo si fiican oo qurux badan u dhacday ayaan waxaan la kulmay dadweyne aad u fara badan oo ka soo qayb galay dareenkoodana aan wax ka weydiiyey waxa ugu horeeya Maxamuud Washington oo nooga sheekaynaya bal dareenkiisa caaway waxa uu meesha ku arkay Puntland bismillaahir rahmaanir rahiim caawa waxaan joognaa waddanka Australia magaalada Melbourne oo lagu qaftay xafladda Puntland oo ka soo wareegtay 17 guuladii waxa ka soo qayb galay jaaliyado fara badan oo Soomaaliyeed ay ka mid yihiin jaaliyada reer Puntland ee degan waddanka Australia ay ka mid tahay jaaliyada Jubbaland oo ka mid yihiin jaaliyada kilalka shanaad waxa ka soo qayb galay siyaasiyiin waxa ka soo galay aqoon-yahan waxa ka soo qayb galay dad ajnabi ah oo nagala jooga maaragtay jaaliyadaha Soomaaliyeed aad iyo aad bay u dhacday waa ku faraxsanahay waa soo dhaweynaynaa jaaliyada Puntland waxaan u rajaynaynaa hambalyo iyo guul iyo horumar
Viva Puntland! caawa aad iyo aad baan mataqaanaa u faraxsanahay shacabka Soomaaliyeed iyo Puntland oo isku duwan baa caawa halka wada timid Soomaali guul baa u rajaynaynaa in la isku tiirsado in mataqaanaa gacan la siiyo Soomaaliland anta ma soconayso guul Soomaaliya toosoy isku tiirsaday hadbakiina taagdaranay taageera waligiina Soomaali ha noolaato Puntland ha noolaato waxaan salaamayaa shacabka Puntland kowdii August aad iyo aad baan u salaamayaa meelaha joogtaanba Puntland waa salaamayaa Soomaali oo dhan waa salaamayaa waxaan salaamayaa madaxweynaha Cabdiwali Cali Gaas waxaan salaamayaa madaxweyne ku-xigeenka waxaan salaamayaa ra'iisul wasaaraha waxaan salaamayaa culimada waxaan salaamayaa waxgaradka waxaan salaamayaa wadaadada Puntland intaasoo 14 boqolkaan ku salaamayaa بسم الله السلام عليكم ورحمة الله أنا عبد محمد رسول الصندارة وحنا عاوح كسو كلا حفلة قيمة يغاية له أو لجو عصي تطبيق جوردي كسو وركتي دورة بنتلان وحنا هم بليو إياه وسو تشدين يا قبقابيالك يدتك وسكسوها ولا وقت بكل مية حفلة قيمة بدن أيام نود علي بنتلان هنولان أنا أقول الله مقعد مع عبد السلام ما أنت توحى هل كان هم بليو مركرت وحنهم بعد علينا يا تيفيجا مركل وحنا مهد علينا يا دمان دتكي سو أبولي حفلة دا سكن ما أنت تعاد وحقوق فرح سنة هاي حفلة دا سنة تضويت وسنة جورة بوتلان مركل وحنا هاي سنة وناكسن سنة كان بوتلان إن سيبرار ورجينا بوتلان هنولاتو دمان مدحدا بوتلان waxaan salaamayaa ismadayada iyo islaamadayada iyo boqoradayada iyo salaadiintayada sharafta leh waxaan salaamayaa shacabkayada sharafta leh waxaan salaamayaa si gaar ah u salaamayaa gabdhaha reer Puntland oo geesiyaasha oo deeqsiyaasha meel kasto ay joogaan iyagana hambaliyaan leeyahay waxaan kaloo salaamayaa si gaar ah u salaamayaa jaaliyada Melbourne oo si qurux badan caawa xafladan oo xushmad iyo farxad ay ku dheehan tahay uga soo qayb galay iyagana waa u mahad celinaya waana salaamayaa waxaan salaamayaa gaar ahaan gabdhaha Melbourne waxaan kaloo salaamayaa hambalyo leeyahay gabdhaha Brisbane degan oo reer Australia sida quruxda badan oo ay noogala qayb qaataan wadankooda waxaan ugu baaqayaa gabdhaha reer Puntland oo degan gobolada kale Australia iyaguna sida gabdhaha reer Melbourne iyo gabdhaha reer Brisbane inay u istaagaan wadankooda dhammaan reer Puntland hambalyo waxaan caawi joognaa xafladii asaaska Puntland 17 guuradii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladan waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dadweynihii sharafta badnaa ee ka soo qayb galay wax walba iskaba qurxoonaadaan dad baa effort iyo shaqo badan geliyay xafladan quruxda badan caawa fiirsanayseen waxaan jeclahay sanadkan tiis kale inaanu kaga soo qayb galno mid ka sii fiican iyo horumar iyo barwaaqo ma ku dheeraanayo caawi aad iyo aad baan maaragtay dareenkaygu uu u yahay mid aad iyo aad u sarreeya waa idin salaamayaa dhammaantiin ismada madaxda sare ee dowladda Puntland iyo dadweynaha dhammaantood iyo kuwa halkan caawinta iskugu yimid intaba aad iyo aad baad u mahadsantihiin hambalyo Puntland أنا أهم بليينها يا الدولة يا شرفت له وقيمها له قالقة آدي يعني وفرحتنا هاي إن دولة يا مقعيقي waxaanu leenahay gabdhaha gobolada jooga anoo ku hadlayo ururka haweenka Australia Soomaaliya ee health care-ka magacooda oo ajeer beertan waxaanu rabnaa inaan dawladayada quweyno dadka Puntland reer Puntland oo dibadaha joogan waxaan u sheegayaa ama Canada ha joogan ama America ha joogan ama London ha joogan idinka wadankiina soo saari kara Puntland idinka magac u yeeli kara idinka sharaftooda keeni kara dadka dibadaha jooga Puntland waa haqrateen Puntland waa taaba guday waana qaangaartay ilaahay waxaan uga baryaynaa inay samada marto oo barwaaqo iyo bashbash ku gaarto muxuu ahaa sanad guurada dambe ilaahayna waxaan uga baryaynaa kuwa israaca oo garbaha isqabsada oo cadowna ka faa'iideysan baan ilaahay uga baryaynaa hannoolaato hambalya ayaan leeyahay dadweynaha oo reer Puntland oo dhamaantiis ay u dhan yihiin dhammaan isimada shacbiga reer Puntland oo dhan madaxweyne ku-xigeenka
gudoomiyaha baarlamaanka ummadda reer Puntland oo dhan waa salaamantihiin assalaamu calaykum tan labaad waxaan leeyahay hambalyo sanad guuradii 17aad annagoo maanta caawa ah jaaliyadda reer Puntland oo magaalada Melbourne halkaan baan ku hambalyeynayna oo aynu ku fantisiyeenayna hadda waa kaas sanad guuro wanaagsan hambalyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland waxaan leeyahay hambalyo meel kasta oo joognaba xalfadda balaaran qurux badan ayaan ku qabanay halkaan si fiican bay noogu dhacday waxaan ilaahay ku codsanaynaa sanadkiisa kale inaan horumar iyo barwaaqo bashbash aan ku gaarno waxaan leeyahay Puntland isku tashato meel kasta ay joogto raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed axmed cabdullaahi kabaal oo aad iyo aad maanta xafladii aan ku taageerinay sanad guurada ka soo wareegtay xilligii Puntland la aasaasay ayaanu halkaan ugu dabaaldegaynaa dhammaan haddaanu nahay jaaliyadda reer Puntland ee ku nool waddanka Australia gaar ahaan magaalada Melbourne aad iyo aad bay xafladdu si wanaagsan ayaa xafladdu noogu dhacday halkan waxaan hambalyo uga dirahayaa madaxda reer Puntland oo ugu horeeya Cabduuli Maxamed Cali Gaas camay iyo gudoomiyaha baarlamaanka dhammaantood waxaan leeyahay Puntland meel wanaagsan ayaan ka rajaynaa gaarsiisaan waxaan leenahay gaarsiiya insha Allah sidoo kale waxaan leeyahay dhammaan ummadda reer Puntland meel kasta ay joogaan hambalyo sanad guuro wacan reer Puntland haddaanu nahay caawa xafladda imaano waxaa waaye si aad iyo aad bay iskugu dhacday waxaan taageersanahay dowladda Puntland ha noolaato Soomaaliya ha noolaato salaamu calaykum meel kasta oo aad joogtaan ummadda reer Puntland waan idin salaamayaa isimadu u horeeyaan madaxweynuhu ku xigo madaxweyne ku xigeenku ku xigo ra'iisul baarlamaanku ku xigo dhalinyarada odayaasha culimada waxgaradka meel kasta oo ay joogaan reer Puntland waan salaamayaa cadowgiina Allaha jabiyo horay u socda kuwa gadaal u socda ha noqonina hambalyo caawa halakan sanad guuradii ayaanu isugu nimi insha Allah sanadkiisa Allahayna gaarsiiyo marka hore waxaan salaamayaa dhammaan shacabkii tirada badnaa ee isku yimid iyo TV-ga inta waa salaamaya marka hore xafladda caawa waxay ahayd xaflad aad u heersareysa oo ay ka soo qayb galeen dadyo kala duwan ama ha noqdaan kuwa wadamada dariska ama ha noqdaan dawlad goboleedyada Soomaaliya ka jira dhammaan waxaan leenahay sanad guuradii 17aad ee dawlad goboleedka Puntland waxay ku dhamaatay baraare ilaahay waxaan uga baryaynaa sanadkiisa inuu gaarsiiyo guul iyo nabadgelyo dhammaan Soomaaliya iyo inta af Soomaaliya ku hadashada intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa dadweynaha aad ka u tira badan ee reer Puntland oo aan daroonkooda weydiiyay xafladda caawa halka ka dhacday intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa anigoo ah Cabdisalaan Nuur Maxamuud Puntland TV Melbourne waxaan hadda ku wareejinayaa mikrofoonka Cabdi Cilmi Cabdi mahadsanid Cabdisalaan barnaamijkeena astaan horumar ee idinkaga imaanayay studio-ga Melbourne ee waddankan Australia ee ku saabsanaa dabaaldegii loo sameynayay 17 guuradii ka soo wareegtay Puntland inta ayaan ku soo gabagabeynayaa inta aynu mar dambe kulmayno asbuuca soo socda waa Cabdi Cilmi oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo iyo nooli kulanta